wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa waxa uu xadhiga ka jaray xarun caafimaad oo casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. xaruntan caafimaad ayaa la magac baxday Burco General Hospital waxaana ka howlgali doona dhakhaatiir ajnabi iyo kuwa wadaniyaba. xaruntan ayaa waxa hirgeliyay qurba jooga gobolka Togdheer waxaana munaasabadii xadhiga jarka xaruntan caafimaad ugu horeyn ka warbixiyay sida ay u shaqeyn doonto Dr. Axmed Xasan Cawad iyo Injineer Faarax Maxamed Cabdi waxaana kamid ah hadaladoodii magaalada Burco iyo Togdheer waad ogtahay dadkeedu had iyo jeer ama Hargeysa ku sii socdeen ama Itoobiya ku sii socdeen ama Dubai baa lagu socday ama Malaysia lagu soo socday haddana waxa loo sii socday wax si weyn ma ahayn waxay ahayd wax dhakhtar international standard ah oo inta ugu hooseysay basic medicine ka adag inuu fulin karo ayaa maaragtay haddana inta u marayeen oo 12,000 ayaa laba gabdhood lagu qaaday ilaa Malaysia waxa loo soo sameeyay waxaan gastroscopy la liqay anaguna 10 minutes baan halka ugu sameyn karaa de marka 12 qof ay ku baxday iyo qof ay ku baxayso $50 waa kala different marka ta aad iyo aad noo kicisay waxay ahayd taa maanta waxaan halkan ku haynaa cusbitaal ay departmentka maternity-ga uu korayo departmentka gynecology uu korayo internal medicine le intensive iyo maaragtay intensive care le iyo surgery iyo proctology le waxaan jecelahay inaan halkan idinka sheego waxyaalaha gaarka ah ee dhakhtarkani uu astaan gaar u leeyahay kagana duwan yahay dhakhtarada kale ta ugu horeysa waxa weeye iyadoo dhakhtarku uu furan yahay 24 saacadood oo ah dhakhtar emergency leh oo markastaba aad ka helayso dhakhtar waxa ka tusaale idinka qaadanaya oo aan idinka sheegi karaa dumarka umushooda tusaale haddaan idinka siiyo dhakhtaradu way timaadaa 1 habeenimo 2 habeenimo 3 habeenimo waqti kastaba dhakhtar ayay helayaan dumarku waxa iyaguna halka ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Salebaan Xagle Toosiye iyo isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Cabdi Yaasiin marka xukuumad ahaan aad bay nooga go'an tahay inaanu dhiirigelino la shaqeyno wax la qabsano cid kasta oo horumarka dalka ka qayb qaadanaysa horumarka dalka cid kasta oo maal gashanaysa waa soo dhaweynaynaa gaar ahaan waxaanu soo dhaweynaynaa oo mudnaanta koowaad leh muwaadiniinta u dhashay waddankan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa Dr. Axmed iyo groupkiisa aad baan Axmed la shaqeyn doonaa insha Allah aad baan ugu mahadnaqaynaa aadna aan ugu faraxsanahay inuu halkan uu noo yimaado cusbitaal noocan oo kale Ibrahim Faarax Macaan iyo Cable TV Burco.